الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdaة الأحكام للإمام أبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي waxaan soo gaarnay baabu istiqbaali الqibla baabu istiqbaali الqiblati wuxuu baab yahay qiblada qaabilitaankeeda qiblada in la qaabilo marka la tukanayo salaada in qiblada lala qaabilo qiblada muslimiintuna waa kacbada marka nabigu calayhi salaatu wasalaam hijrada ka hor intuu joogay magaalada maka wuxuu u dukan jiray baytulmaqdis iyo kacbada wada jira ayuu u jeesan jiray maadaama uu kacbadii joogo oo maka joogo markii uu kasoo hijrooday oo madiine yimidna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu u jihaystay uu ku gaabsaday inuu qaabilo baytulmaqdis 16 bilood ayuu halkaa u jeeday wuxuuna aad u jeclaan jiray in ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan soo dejiyo oo loo maaragtay jeediyo kacbada kacbatulmusharaf halkaasoo maaragtay raadkii abulambiyaai ah ninka la yihahdo ibraahim nabiyullah ibraahim calayhi salaam marka iyadoo sidaasa ayaa markaa sanadkii labaad allah subxaanahu wa tacaala 16 bilood kadib ayuu allah soo dejiyey subxaanahu wa tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka qiblatan tardaahaa fawali wajhaka shadra almasjid alxaraam saasuu yihi allah subxaanahu wa tacaala halkaasaa marka loo jeediyey marka qibladu in loo jeesto waxa weeye kitaabka iyo sunnaday ku sugan tahay ijmaaca waana shardi kamid a shuruudda salaada oo aanay salaadu ansixayn haddii aan lala imaan ood qiblada meelaan haddaad u jeesato salaadu kaa ansixi mayso ilaa cajzi aad ka caajistay mooyaane qofku waa wareeri karaa ama dagaal daran oo qof daranaa socda wain khiftum fa rijaalan aw rukbaanan wey markaa sidii kuu suuro gashaad u dukanaysaa ama xanuun kalaaba haya qofko waa loo jeedin karaa hataa qofka hadduu si kastuu xanuunsan yahay marka sunnada iyada waa noo imaan doontaa in loo dukan karo qiblada meelaan ahay meesha u jihaysto gaadiidkaada way noo imaan doontaa alxadiiث الkhaamis وasituun xadiidka 65 can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ibni cumar waxaa laga wariyey wuxuu yihi rasuulkii alle kaana wuxuu ahaa yusabixu mid sunaysta calىa dahri raaxilatihi gaadiidkiisa dushiisa xayثu meel kaana wajhuhu wejigiisu ou ahaado yuumiu isagoo ishaaraya bira'si madaxiisa wa kaana ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcaluhu mid sameeya sidaas wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxay ahayd kaana wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yuutiru mid witriya calaa baciirihi ratigiisa dushiisa walimuslim waxaa u sugnaaday gayra laakina anahu nabigu sala allahu alayh wasalam laa yusallii uma dukan jirin calayhaa ama kuma dukan jirin calayhaa daabadda dusheeda almaktuubata salaada waajibka walilbukhaariy bukhaari waxaa u sugnaaday ila alfaraa'ida faradka mooyaane marka xadiidkani wuxuu leeyahay ibnu cumar nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gaadiidkiisa saaran gaadiidkaasu nuucu ahaadaba ayuu wuxuu u dukan jiray ku sunnaysan jiray gaadiidka dushiisa gaadiidkuna meeshuu doono ha u jihaysto ilaa gaadiidkii waa gaadiid socda suuragal maa inuu kacbadii inuu mar walba maaratay kuu suuro gasho ood qibladii u jeedo marka hore ayaad u jeedinaysaa xagga maaratay qiblada markaad ujeedo waad xihanaysaa salaada kadib meeshuu doon ha aado waad maaratay halkaas waa sunno laakiin can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana rasuulkii alla wuxuu ahaa yusabixu mid sunaysta calaa dahri raaxilatihi gaadiidkiisa dushiisa xaytu meel kaana uu ahaaday wejigiisu yuumi u ishaaray bira'si madaxiisa madaxuu ku ishaarayay macnaha waa qof kursi ku fadhiyo kale waad ishaaraysaa rukuucda iyo sujuuddana waad kala hoos marinaysaa oo dabcan sujuudi baad hoos marinaysaa
وكان ابن عمر نوع يفعل من سداس السماء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية واحد كان هو النبي عليه الصلاة والسلام يوتر مد وتريا وصلاة وتريا وهبين كيا على بعيره رتجس دوشيس كودري. وللمسلم مسلم عاوصنا هذا غير الآخر أنه النبي لا يصلي مد كنشرين عليها دابة الدش على المكتوبة صلاة واجبك. وللبخاريين إلا الفرائض واسكو معنه مكتوبة فرائض هذا واجب كاو وهكذا لفظي بaa kala gedisa marka waa arrin banaan in qofka uu saa u sunaysto waxayna ku tusinaysaa macnaha marnaba inaan la ogolayn qofku inuu Allah xiriirkiisa faaruqo dhikri iyo salaad bal marba ku jirto bal eeg gaayadu saaray waa musaafir wala tukanaya gaadidka loo tukanaya mar walba Ilaahay baa la xusaya subhanahu wa ta'ala annagana waxa laga yaabaa intaan Ilaahay xusnaba in iska yartahay inta iska yartaa waxa markaan fursad helno waxaan raadsanayna qof aan is sheeka dhaqaa qof ay soo kaana baxdo raadi baan leenahay marka waa arkaysaa yani wadada aan ku socono iyo tii nabigeenu ku socday kaleey sallallahu alayhi wasallam wax badan baa u dhaxeeya. الحديث السادس والستون حديث كاللح إيو لحذرات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحيري بينما وقت الناس ضدكم بقباء مسجد كلنا قباء كسوغيين في صلاة الصبح صلاة دي الصبح إذ إلا أما إذ إسلام مركاسبة جاءهم وحاوي بدأت المدي ماذا فقال وحوي إن النبي إلهي صلى الله عليه وسلم قد أنزل وحال وسودجي عليه كركي سأل ليلة حالي قرآن بالوسودجي وقد أمر وعلى أمري أن يستقبل الكعبة إنه كعبة قابله فاستقبلوها كعبة قابلة وكانت وجوههم مجيال كودن وحوها إلى الشام من الشام وبيت المقدس لو دكاني مركز فاستداروا إلى الكعبة كعبة دي بأوريك يو صلاة دي كجرة إن بقى يمد يو صلاة دي كجرة والله الله هذا الله الله وحو يري قرانا حال النبي اللي وسودتي عليه الصلاة والسلام صحابي أمي مركا وحو يري كعبة أيا لو وريجي وريجا صلاة أيو كجرة مع الإمام كودي ووريجي مركا صلاة كمان بحن maxay tahay wali adiga ku sheegayo run ma tahay war hadda ma laho waxaas lama gal marka waxa ku tusinaysaa khabarul ahad in la qaadan karo iyas waxay kale ku tusinaysaa saxaabadu siday uga dambeeyeen awaamirta Allah iyo rasuulkiisa subhanahu wa ta'ala mar walba iyo in qof dukanay aad la hadli karto waa ku tusinaysaa marka salaadiina kamay bixine way wareegeen marka مثلا hadii qiblada wax yar ay ka waxaysanto salaada ku jira hadii lagu sheego ma ogaato salaada ka bixmeed waad wareegaysaa salaadii hore lama soo celin laana markuu qofku soo gaaro khabarku ayuu muu qaadanayaa hore uma ogeyn meeshii awal amri u cibaadeysanay kadibna waxa lisaana maaratay loo bedelo hawshi loo bedelaya. الحديث السادس والستون حديث اللحية الحدانات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحيري بينما وقت الناس ضدكم بقباء جوغان في صلاة الصبح صلاة دي الصبح إذ وقت جاءهم محاويب إذ إسلام مركز جاءهم محاويب آت بدي ماذا فقال وحيري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل والوسود جي عليه كل في سأل ليلة تعالى القرآن وقد أمر وحى الله أمري أن يستقبل الكعبة إنه كعبة قابلة فاستقبلوها قابلة وكانت وجوههم مجيال كودن وحوها إلى الشام حق الشام وبيت المقدس بيقول جدين وي فاستداروا وي وريجين إلى الكعبة تبي وريجين وي هم كساس وقهتين. الحديث السابع والستون حديث كتضبي الإحدانات عن أنس ابن سيرين وحال قوري قال وحيري استقبلنا وان قابلنا أنس بن مالك بن قابله رضي الله عنه حين قرتي قدمه وكسوق من الشام فلقيناه وان كلنا بعين التمر ماشي اللي عين التمر ما كلنا فرأيته وان أركي يصلي يسوق الدكانية على حمار الدمير دشي والحال وجهه وجهه من ذا الجانب كعبة دين عيد أو يهي معناها يعني عن يسار القبلة قبلة دين عيد أو يهي فقلت وحن كو يريبو رأيت كوانكو أركا تصلي أدقو أدو كنية لغير القبلة قبلة مال الحين محاجرة وي معنه فقال وحيري لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدين لا يهي إن أركا رسول كيالي يفعله إساقه سمينية ما فعلته ما سمينبو وعليه أنس ابن سيرين وحول الشيء وحكويه محمد ابن سيرين تابعي شهير كه أيوة الله الشيء يا حفصة بنت سيرين أيوة ويبدين سيرين كاسنا وحى حرية وأظن وهاجري أنس بن مالك مركب وحو يري أنس بن مالك بن قابلنا عين التمر وعمال وحي قلت الله قلبات العراق
ayay ku taallaa. marka wuxuu kasoo laabtay dimashq iyo dhulkaas isagoo ka astakoonaya ayuu baxay ee ninka la yihahdo xajaaj bin yuusuf oo markaa ka talinaya meesha ayuu ka astakoonayay oo u gudbiyey madaxda kale. kadibna waa lagala hadlay, isagana waxaa la yidhi meeshaas kaga laabo, isna waxaa ka leexo saxaabiga. markuu soo laabtay marka wafdi ayaa laga hortegay, yani waa saxaabi, waa la karaameynaya, cilmina waa laga baranaya. hadda lacaga laysu karaameeya, qofka lacagta haysta ama laga cabsanaya loo tagaa suma, waa lasoo dhaweeya lagu leey intaas dhacdhacaa la raadinaya. inta badan qof kasta wax kaa soo gaara, lakin qof cilmi raadinaya sheekh caalim hadduu adduunka ka yimaado laba dhinaa utegaysa malaha, cid utegaysoo kale war maxaad haysaaba loo arko. marka caynu tamrina waa meeshaasoo waa meel dagaal ka dhacay oo waktigii khilaafadii cumar ayaa maaragtay saxaabada iyo waxaa isku herdiyey niman inay kolley dabcan faristiin ahaa oo lagu jabiyey meesha. saxaabo badan waa ku shahiideen. caynu tamri waa meel timir badan wey. marka meeshaasaan wuxuu ugu tagnay, markaan ka hor tagnay arkay ula soo u dukanaya maaragtay gaadiidkiisa kudul dukanaya, gaadiidkuna de u socdo meelaan qibladii xaggeeda ahayd. kadibna waxaan ku idhi buu yidhi anasow, anas ibnu sirin baa dhahaya, anas ibnu maaligow waan ku arkaa buu yidhi. anas ibnu sirin waa taabi, waa naga hadda ka sheekeynin, meelaan qibladii ma u dukanaysa. markaasuu yidhi haddaanan rasuulka allah sidaan sameynay arki lahayn maaragtay ma ana sameeyey, rasuulka allahn ka arkay wey. macnaha muran iyo qajajac ma jirtaba, rasuulkaas sameeyey alayh sala slam khalaas. marka rasuulka ficilkiisana waa la qaadanayaa, de wuxuu ka tegana waa in laga tagaa, wuxuu ka tegana waa in laga tagaa, qajajac looma baahno. alxadiidu saabic wasituuna, xadiidka 7 can anas ibnu siriin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi istaqbalnaa waan qaabilnay anasan baan qaabilnay, anas ibnu maalik radi allahu canhu, xiina goortii qadima oo kasoo gala min ashaam, dhinaca shaam oo ka yimid. falaqiinaahu waan la kulanay bicayni tamri baan kula kulanay meesha la yidhaha. fara-aytuhu waan arkay yusalli isagoo ku dukanaya calaa ximaari dameer dushii, walxaal wejhu wejigiisuna min dal jaanibi dhinac uu yahay, yacni can yasaari lqiblati, qiblada bidixdeeda uu yahay weeyaan, bidixda qiblada oo qibladii macnaha toos uguma jeedo. faqultu waxaan ku idhi buu yihi ra-aytuka waan ku arkaa tusalli adigoo u dukanaya ligayri lqiblati, qiblada meelaan ahayn maxaa jira weeye, see wuxuu jiraa. faqaala wuxuu yihi lowlaa haddii lala yahay anii anigu ra-aytu rasuul allah, rasuulkii allah inaan arkay sala allahu alayhi wasalam yafcalu isagoo samaynaya sidaas, maa facaltuhu ma sameeyeen. saasuu yihi rasuulkii allahn ku arkay calayhi salatu salaam, waana ku dayanaya. laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana wey. maxaa ka fiican haddaad rasuulkii alla aragtay ood ku dayatay khalaas, waa sidii loo baahnaa. isagana waa inuu sidaas u qaataa oo uusan war kala gelin. marka qiblada marka sideedaba waxa weeye haddii aad joogtana bicayniha ayaad qaabilaysaa. haddaad qiblada joogto, yani aad joogto meesha kacbada ayadaad u jeesanaysaa. haddii aad ka fog tahana jihadeeda, maa bayna almashriqi walmaqribi qibla wey. markaas baabu sufuufi, sufuuftii ayuu u baab yahay. sufuuf yani waa iska soomaali iyo carabi soomaaliyoba soo maha, fasir kaluma baahno. alxadiidu 68 xadiidkaa 8 can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam, rasuulkii allah wuxuu yihi sawu sima sufuufakum, safafyaalkiina sima, faina taswiyata safi, safka simitaankiisu min tamaami salaad, salaada taamaashadu kamid. anas bin maalik wuxuu yihi nabigu alayh slat slam wuxuu amray, wuxuu yihi sima safka, safkoo la simaahi wuxuu kamid yahay salaada taamahaanshadeed. marka oo salaada dhamaystirnaashadeedu kamid yahay. marka waa laysku xadiidka waa laysku khilaafayo, culamada qaar baa yidhi maaragtay mar haddii nabigu amar kaa bixiyey alayh salatu salaam waa waajib, safka in la simaayo waa waajib, haddii kale salaadii waka. marka qaarna waxay yidhahdeen hadda min tamaami salaad, tamaam shay la taam yeelayo waa shay jira, shay aan bas jirin oo burburay hadduu salaaddii ay burto maxaa la taam yeeli waxba. marka safkii taam ahaanshadii mar haddii la yidhi macnihii baa la ysku hayaa. macnaha haddii taam ahaansho la yidhi waxun baa bilaaban, waxbaa ka dhiman ya. marka adugu inay waajib tahay ayaa xoog badan, oo salaada maaragta mar walba in la iska xil saaro. waxaad arkay qofka dujinaya qof kasta inuu iska galo dalaq haye allahu akbar iska wato, waxaasi salaad maaha. salaad waxaa loo baahan yahay in la simo oo lagu dadaalo, sida nabigeenu u yeeli jiray alayhi salatu salaam noo imaan doonta, oo lagu dadaalo oo qofku maaragtay imaamkaahu
oo dadka simo, waxaana la simayaa garbaha iyo maaragtay cirbaha iyo qoobabka maanqawyada ayaa la simaya. wuxuu uri nabigu alayh الsalatu salaam sawuu sufuufakum, safafyaalkiina sima, fa ina taswiyata safi, safka simitaankiisu min tamaami الصalaaة, salaada tamaashada kumid. alxadiiث الtaasic والsituun, xadiidka 9 can الnucmaan ibn bashir radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam, rasuulkii allaan maqlay yaquulu isagoo leh latusawunna, waad simaysaan sufuufakum, safafyaalkiina, ow layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum, ama allah wuxuu iskhilaafsiinayaa wejiyadiina. walimuslim waxaa usugnaaday kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam, rasuulkii alla wuxuu ahaa yusawi mid sima sufuufana, safafyaalkayaga mid sima, xataa intii kaanamaa waxaad moodaa yusawi inuu ku simayo biha safka alqidaaxa, leb ama fallaar. xataa ra'aa markuu arkay, ra'adan waa ru'ya maaragtay muxua ru'yat cilmi wey, ma ahan ru'yatu basr ma. xataa goortii ra'aa u arkay an qad caqalnaa inaan fahamnay canhu xaggiisa ka baranay, markaa waa iska dayey way, waa iska joojiyey xoogaa maaragtay dadaalkii faraha badnaa uu gelinayay alayh salatu slam. uma kharaja waa soo baxay yooman maalin, faqaama waa istaagay xataa kaada ilaa uu kasigu kaga dhowaado an yukabira inuu takbiirsado allahu akbar yihahdo. fa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin baadiyan sadru xabadkiisa uu soo taagan yahay safka dhexdiisa. faqaala wuxuu yihi cibaad allah, yaa cibaad allah addoomadii allo, latusawuna waad simaysaan sufuufakum, safafyaalkiina, ow layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum, bise allah wuxuu iskhilaafsiinayaa wejiyadiina. xadiidkan waxaa weliyey nucmaan ibnu bashiir, waa ninkii ugu horreeyey ku dhashay oo u dhashaan dhihi lahay markuu nabigu hijrooday kadib alayhi salatu salaam ansaarta. nucmaan ibnu bashiir baa la yidhaha, abiina waa saxaabi, hooyadiina sidoo kale. marka waxaa jiray mar inuu aabihii siiyey addoon, kadibna ay tiri hooyadii nabiga markhaati kaga dhig alayhi salatu salam, haddii kale ku qanci maayo. marka waay waa soo kaxey nabiga u keenay alay slam, nabi allow markhaati ka noqo, wiilkaas addoonkaasaan siiyey. markaasuu yihi caruurtaado dhan ma wada siido, soo maya, iyagoo yiri cadaalad darro anuu ka noqon maayo markhaati, soco waxba ma jiraan, la soco, saasa u socota caruurtaadii ayaaba loo baahan yahay inaad cadaalad u samayso. alxadiidu taasiya wa situuna, xadiidka 9 can الnucmaan bn bashir radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam, waxaa ka maqlay rasuulkii alla yaquulu isagoo latusawuna waad simaysaan sufuufakum, safafyaalkiina, aw layukhaalifana allahu, ama se alla wuxuu iskhilaafsiinayaa bayna wujuuhikum, wejiyadiina. yani waa isnacaysaan wey, hadda macnuhu waa isnabcaanaysaan, sida haddaba jirtaba, haddaba soo leesma necba muslimiintu. yani shay laga tago sunaa ayaa wax badan ku baaba'aya. maxaad u malaynaya hadda meeshaan taaganaaba diinta o dhan soo lagama tegin, khalaas saasaa lagu jiraya abadan. qumbaladaas iyo guulguul iyo maaragtay diintii oo laga dhigo inay maaragtay diin gaala ka oday tahay, ka waayeel tahay, saasaa lagu jiraya. leanna haddaan maaragtay nabigii calayhi salatu salaam dariiqiisi la qaaday, hadda waxa lagu socdo. hadda nabigu alayhi salatu wuxuu ka hadlaya waxa weeye keliya, wuxuu ka hadlayaa keliya waxa weeyaan safki. walimuslim waxaa usugnaaday kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam, rasuulkii alla wuxuu yusawi mid sima sufuufana, safafyaalka iyagu simi jiray, xataa intii kaanama waxaad moodaa yusawi inuu ku simayo bihaa safka alqidaaxa, leeb ama fallaar. fallaartu waa shay maaragtay shaygan maaragtay aad shay u toosnaan badan weeye, waxaa weeye meel baa lagu shiishi lahaa. marka haddii maarata qalooc yar galo meeshii ma suuragal ma noqonayso, marka waa inay toosnaataa. taasoo kale ku toosinaya, yani say sabka loo toosinayo sidaasoo kale ka dhigan yahi u leeyahy macnaha. xataa goortii raa u arkay an qad caqalnaa inaan ka baranay canhu xaggiisa wey. uma kharaja waa soo baxay yowma maalin, faqaama waa istaagay, xataa kaada ilah uu kaga dhawaado yukabiru inuu kibaarto. faraa wuxuu arkay rajulan nin baadiyan sadru xabadkiisa uu soo taagan yahay. marka nabigu alayhi salatu salam waxay yidhahdeen ahlucilmigu inteeda badan markuu sii jeedo salaada hadduu ku jiro gadaal waxbuu ka arki jiray, indho kale oo allah subxaana watacaala uu ogyahay siday yihiin ayuu lahaa, waa loo kashfinayaa gadaal waxa taagan. markuu wuxuu arkay isagoo sii jeedo allah bari rabo, ayuu arkay nin xabadkiisu soo taagan yahay. faqaala wuxuu yihi cibaad allahi ya cibaad allah, addoomadii allow latusawunna waad simaysaan
sufuufakum safayaalkiina ow la yukhaalifana allahu mise alla wuxuu iskhilaafsiinayaa bayna wujuhikum wejiyadiina waa isnibcaanaysaa wey adugu alxadiidu 70 xadiidka 7aad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana jaddatahu ayaydii malayka la yidhaahdo wey malaykat dacad way u yeertay rasuul allah rasuulkii alle sala allahu alayh wasalam lidacaamin cunto ayay ugu yeertay sanacadu ay u samayd lahu nabiga calayhi salatu salaam faakala nabigu wuu cunay minhu dacaamkiibu ka cunay uma qaala wuxuu yihi qumuu istaaga falusalli lakum aan idin tukaday ini aan idin tuso salaad macnaha meeshan idinkugu tukanayaa meel hadhow salaatuleilka iyo sunooyinka ay ku dukadaan ama dumarku ay ku dukadaan barakada rasuulka alayh salatu salaam qaala wuxuu yihi anas faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin darin lanaa anagu aan leenahay oo qad iswadda madoobaaday min duuli maa shay dheerirkii lubitha la xirtay lubis makuu qoraya inta la haystay oo la isticmaalay dherarkeeda wey fanadaxtu waxaan ku firdhiyey ya bimaa-in biyaan ku firdhiyey ba marka nijaas maahay waa nadaafa maqaama waa istaagay nabigu alayhi salatu slam aleyhi darinta dusheeda rasuulullahi baa istaagay sala allahu alayhi wasalam wa safaftu waan saftay ana aniga iyo walyatiimu agoon ayaa safanay waraahu nabiga gadaashiisa mid yaro agoon iyo aniga walcajuuzu duqdiina min waraa-inaa gadaashayada fasalla lala ragcatayn wuxuu markaana dujiyey nabigu alay slam 2 ragcood la dujiyey wey uma insarafa waa soo gadoomay weli muslim waxaa u sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alle salla wuu tukaday ama wuu dujiyey bihi anas iyo biumi hooyadii fa aqaamanii wuxuu i joojiyey buu yiri can yamiini dhinaciisa midig waa aqaamal mar'ata haweenaydiina waxay joogsatay ama waa aqaamal mar'atu khalfanaa gadaashayda wey aqaamal mar'ata haweenaydiina wuxuu joojiyey khalfanaa gadaashayda wey alyatiima agoonku huwa ninka agoonka la leeyahay waxa weeye dumayra jaddu xusein bin cabdillahi bin dumayra wey xadiidkani marka wuxuu leeyahay anas binu maalik ayaydey ayaa waxay u yeertay nabiga calayh salatu salaam marka waxay leeyihin ahlucilmigu ayaydii maaha waa hooyadii umu sulaym binti milxaan weeye xadiidka waxaa ka maqan ninka xadiidka raawiga ayaa go-an oo waxaa la yidhaahdaa isxaaq ibnu cabdillaahi ibnu abi talxa waa ninuu adeer u yahay ninka la yidhaahdo anas ayaa xadiidka anas ka wariyey marka meeshuu ka maqan yahay ka go-an yahay isxaaq ibnu cabdullahi ibnu abi talxa iyo ninka le anas bin malik isku hooyo ah umu sulaym baa dhasha mulaykana waa iyada mulayka waa magaceeda saasay marka culamadu rajaxeen ee anas ayadii maaha oo riwaayad dambe waata sheegaysa sallaa bihi wa biummi ta dhahaysa marka nabigu alayh sala slam qof kastaa u yeeri jiray u tegi jiray u ajiibaya isla weyne iyo midna iyo shaqo kuma leh salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa weeye kabiir sagiir rag dumar mid qaniya mid faqiira kulli u tegaya alayh salatu slam marka dantii u yimid marka waa cuntadaas iyado marka cuntadii cunana meel waa u samey jiray saxaabada marka u tago alayh salatu salaam meel ay hadhow salaatuleilka iyo dumarku xataa salaada waajibka masaajidka la aadaa masaajidda la aadaa ee sunooyinka lagu tukado can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana jaddatahu ayaydii mulaykata dacat rasuul allahi bay u yeertay sala allahu alayh wasalam lidacaamin bay ugu yeertay sanacadu lahu ay u samayday nabiga alayhi salatu salam faakala wuu cuna minhu dacaamkii buu nabigu ka cuna alayhi salatu salam uma qaala wuxuu yihi qumuu istaaga falusalli lakum aan idin dukada meelaan ku dukano oon idin tujiyo macnihi qaala anas wuxuu yihi faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin darin lana anagu aan leenahay oo qad iswadda madoobaaday min duuli maa lubitha intan la haystay dherarkeeda fanadaxtuhu bimaa-in baan ku firdhiyay biyo faqaama waa istaagay caleyhi darinta dusheeda rasuulullahi baa istaagay sala allahu alayhi wasalam wa safaftu ana walyatiimu aniga iyo agoon ayaa safanay buu mid yaro agoona waraahu nabiga gadaashiisa walcajuuzu duqdi cajuuz iyo cajuuzu soomaalidu caay arkaan cajuusan yahay hadii la qof in la caayo laakiin waa waayeel ninka waayeelka iyo duqda nin haweeneydaba waa cajuuzu iyo cajuuz waa isku intaas carabigu marka caay mahani waa dhalin da-wey dad waaweyn wey laakiin waa luqad ahaan soomaali waa soomaali carabi laga dhigay wey carabi soomaali laga dhigay wey oo soomaalidu
waxay u haystaan inay cayta duq waayeer iyo way ogolyihin hadii la yihahdo islaam weyn iyo laakin cajuuz islaam cajuuzaha hadii la yihahdo waxa weye waa lagu kala baxaya meeshaas dagaal baa ka bilaabanay walcajuuzu duqdiina min waraa'inaa gadaashayada fasallaa lana fasallaa wuu nadujiye lana anaga ragcatayn laba ragcod uma saraf waa soo gadooma walimuslim ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam sallaa wuu dujiyey bihi anas iyo biumi hooyadii ayuu ahaa muslim faaqaamani wuu joojiyey buu can yamiina dhinaciisa midig waa qaamo atana wuxuu joojiyey can khalfana gadaashayada alyatiimu huwa dumayra weeye jadu xusein bin cabdillahi bin dumayr wey awowgii waay ninkaas alxadiiث alxaadi wasabcuun xadiidka 11 can ibn cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu uri bintu khaalati bintu waxaan baryay bu uri cinda khaalati dhe habaryartay agteeda maymuuna ayaan baryay faqaama nabiyu nabiga istaagay sala allahu alayh wasalam yusalli xaaluu tukanayo min aleyl habeenkii faqumtu anna waan istaagay can yasaari dhinaciisa bidix faakada uu qabto bira'si madaxayga faaqaamani wuu joojiyey buu uri ama istaajiyey can yamiini dhinaciisa midig marka cabdullah ibn cabaas wuxuu leeyahay habaryartay waa maymuna bint alxaarith alhilaaliy waa soo marnay waa xaaska nabiga alay slam isagana waa habaryartii marka inuu nabiga alayh sala slam soo ogaado cibaadadiisa soo barto isagoo asagoo wiil yar u aaday marka guriga habaryartiina waa habaryartii wuu joogi karaa marka halkaasaan tegay buu yiri habeenkii salaatuleilka nabigu u istaagay alayh salatu salam anna waan istaagay kadib dhinaca bidixan ka istaagay buu agaan kasoo qabtay waa soo wareejiyey dhinaca kale u ka helay marka dhinaca midigaad ka istaagaysaa haddaad laba tihiin waad mastirmaysiin haddii uu yimaado qof ama dad kale yimaadaan markaa gadaalaad u baxaysiin imaamku iska joogo haddii laga maarmi waayana oo meeshaas ay suuragalayn imaamka horu baxay ama ay daruura timaado marka dhaqdhaqaaqaasna salaada waxu dhibi maayo talaata xarakaatin mutawaaliyaatin badala salaatu si iyadoo kale ma noqonayso taas maxaa weye waa wax maslaxatu salaad weye maslaxatu salaad wey taas hadii la yidhaha hadiiba la dhaqaaqo salaadii waa buraysaa 3 xarako hadii la 3 aad tirsato 3 tirsan mayid wax inaanay macnaha sharci darra ahayna shardiga inaadan bilaash u socdo oo dan u socto الحديث الحادي والسبعون حديث كوبيا تضباطنات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحور بنت عند خالتي من بريين ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسقط الدكاني من الليل هبين كيف قمت انا وانا استاغ عن يساري نعس بدح فاخذ براسي مدحي وقبطي فقامني وحو يجوجيي عن يميني نعس مدك marka riwaayad kala inay maartay saxiixeeda aan ogeyn kan waa saxiix xadiidkan ayaa waxay ku daraysay isla siirada aan ka akhriyay waxay ku daraysay markii salaada laga baxo nabiga calayhi salaam wariyaa maxaad maaragtay muxuu ahaa gadaal u sikaday markii uu joojiyey dhacbe ayuu gadaal u sikaday kadibna markii salaada laga baxo nabiga calayhi salaam wariyaa maxaad markaan kula isla soo kaasimay ila sinmi weyday markaasuu rasuulka allah odigmaa kula sinmi karaa calayhi salaam markaasuu nabigu tagay u duceeyey calayhi salaam allahumma faqihu fi diin marka qaybtaas kale daciifkeeda iyo saxiixeeda ma garanayo siiradu inta badan waa iska soo qaataan waa iska soo badsadaan shay marka aad saxiixiisa aadan ogeyna sii gudbintiisu waa dhib badanta laakiin intan hadda waa intii saxiixa الحديث الثاني والسبعون حديثك لبا iyo toddobaatanaad عن أبي هريرة رضي الله عنه بس waa barmaad baabkii ها baabka halkaa haynoo joogo caawa إن شاء الله تعالى intaasaan ugu filan بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى أعلم